maadaama aynu soo dhamaadeen cashiradii aan window kaga sheekeynaynay maanta waxaan qaadan doonaa types of software waxa ay kala yihiin windowga farqiga u dhexeyn kara iyo softwareada kale amaba operating systemyada iyo applicationada maxaa u dhexeyn kara ka ayaan arki doonaa waa Somali Star Online Training iyadoo ardaydii kala duwaneed casharada qaybta English iyo qaybta computerka halkaan kala sii socon doono ayaan halkaas sii maraynaa waana muhiim jiddan taas ardayda kala duwan oo adduunyada daafeeda ku kala sugan halkaas ay kala sii socon doonaan iyadoo step aan ula socon doono tilaabo aan qaadi doonaa step by step iyadoo tilaabo aan ula socon doonaa ayaa halkaas sii maraynaa maanta waxaan soo gudgalaynaa marka cashirkeena inoo socday types of softwareada kala duwan noocyada kala yihiin iyo typeskooda okay waxaan arki doonaa marka inta noocay noqon doonaan softwareada application software kuwa la isku yiraahdo iyo kuwa la isku yiraahdo operating system types of software there are two main types of software system software operating system software hadii lagu yiraahdo waa operating system okay system software is computer software which manage and control computer hardware so that application software can perform the task application software wuxuu imaan karaa buu leeyahay markuu computerkan uu ku jiro system software wuxuu controlaya computerkaaga hardwarekiisa inay isla shaqeyn karaan iyo application iyo system software kan marka application software wax kala ma aha software that designed software loo design gareeyay loo qorsheeyay writing wax lagu qoran karo oo personal qofka organize ama shirkadiisa wax ugu qoran karo ugu diyaarsan karo processing tasks uu ku dijaabsan karo wuxuu rabo such word sida qoraalada word la isticmaalo karo processing database la isticmaalo karo spreadsheet ko kale excel ko kale presentation oo kale oo powerpoint loo isticmaalo waxa soo dhan baa oo qofku ku diyaarsanaya markuu helo kadib computerka inuu shaqeynayo operating system uu leeyahay okay Windows wuxuu ka mid yahay operating systemka Linux baa ka mid ah Unix baa ka mid ah Mac baa ka mid ah Mac marka computer qaas oo shirkad gaar ah Apple ay leedahay uu ku yimaadaa kuwan kala Mac waa professional oo caadi oo mar walba diyaar bay yihiin laakiin Mac shirkad buu qaas u yahay inkastoo computer kale lagu shubi karo hadii la doono okay application software waxa isku raacayo marka israaci doono office ko kale soo wada dhan Microsoft Office QuickBook oo kale Photoshop oo kale etc wixii la macnaa Blacklist Studio oo kale any application fara badan baa israacayo laakiin waa marka la helo kadib applicationadan goorma imaanayaan applicationada waxay yimaadaan marka la helo system software marka la helo window inuu computer ku jiro marka la helo Linux inuu ku jiro marka computerka ama Unix uu ku jiro ama computerka markuu ku jiro Mac oo kale uu sameeysan yahay Mac wuxuu wataa marka application u gaar ah wadan doona Mac oo waa shirkadda Apple baa iskale marka complete classification dhamaystirka classification ahaan computerkan computerada general guud ahaanba class by size ahaan bay kala beegan aan power kooda as follows sidaan ku aragnay ama sidaan raaci doonaba though there is considerable overlap laababka kala duwan laababka kala duwan waxay kala leeyihiin stage waxay kala leeyihiin power kala duwan waxay kala leeyihiin qaab kala duwan habka wax kala qaadaan ba kala weyn waxay kala leeyihiin qaabka internetka ay ku xirmaan ay kala awood badan yihiin ee internetka ay la shaqeeyaan waxa soo dhan baa kala weyn computerada okay iyadoo cashiro fara badan hore aan u soo baranay marka windowga maanta waxaan qaadanaynaa types of software kuwana waxaan dhahnaa groupkan waa system software groupna waa application software waxaa la isku yiraahdaa Microsoft Office QuickBook Photoshop Blacklist Studio programmadaas oo dhan waxay soo galaan wax walba oo la isticmaalayo oo ka baxsan oo system software ka baxsan waa iska application waxaa la yiraahdaa marka computer wax ka shaqeysiinaya oo ogolaanayo inuu shaqeeyo applicationada qaato waxa uu ogolaanayaa waxa la yiraahdaa system software marka laba qayb bay kala yihiin types of software kuwana waa system software oo loogu talagalay system software inay computer ka shaqeysiyaan kuwana waa application software oo waa applicationka la isticmaali lahaa marka laga shaqeysiyo kadib types of software marka there are two main waxa jira laba qaybood oo waaweyn types of software oo ah noocyada kala duwan oo softwareada ah system software waa operating system oo computerka wax ka shaqeysiinaya oo ogolaanaya inuu shaqeeyo marka system software is the computer software waa computer software ka uu leeyahay which kaasoo marka manage gareyn kara controlayo computerka hardwarekiisa computerka la shaqeynaya window kale ama Linux ka kale ama Unix ka kale ama Mac oo kale computerada Mac u sameeysan shirkadda ay leedahay wuxuu la shaqeynayaa hardwarekaas marka application hardware looma baahna inuu la shaqeeyo windowgaas uu ku xirmaya windowgaas uu la shaqeynaya windowgaas uu ka sameysanayaa wuxuu ka sameysanayaa windowgaas ku dhex sameysmaya
okay types of software markaan soo qaadan application software waxaan ku sheegnay inuu asiga hardware uusan la shaqeynayn oo la shaqeynayo computerka markuu window ku jiro ama linux ku jiro ama unix ku jiro ama mac ku jiro la shaqeynaya applicationka wuxuu hoos imaanayaa system software-ka sababtoo ah computer aan system software lahayn application lagu ma ku shaqeynayo software marka that is designed waa kuwa loo qorsheeyay loo diyaariyay and writing wax lagu qoran karo specific personal organize inuu qofka shaqadiisa ama shirkadiisa ku habaysto or processing task iyo lagu tijaabsado process ahaan sida word oo kale processing database oo kale spreadsheet oo kale presentation oo kale powerpoint graphics aan u isticmaali doono kale waxaas oo dhan waxaan u isticmaalnaa markay yimaadaan intaa kadib okay Somali Star Institute of the Language on Computer System halkaasaan kala soconaa barashada casharada teknolojiyadda waa engineer maxamed maxamuud bare maanta waxaan kala baranay system software waxaan kaloo baranay application software marka iyadoo casharo fara badan hore aan usoo qaadanay sidaa darteed halkaasuu maanta inoo soo joogayaa types of software halkaasuu inoo joogayaa sidaa darteed fi amaan allah wasalaamu calaykum waraxmat